بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسيرك وسارد عدالة دينتا يا رماه دستورك علماء ديغانك أما دولة قولتك وقوي بري هير عاصمة يدمان علماء قد دعوة علماء جمعية النور أو قدومية هي شيخ عبد الرشيد محمد أو فارح iyo dhammaan ardayda aynu maanta munaasabadooda u joogno wiilal iyo gabdhaba ehlu sharafka ka soo qayb galay ee masaajidkan waqtigoodii u horeeyay ku sugan inay dhageystaan iyo dhammaan bahda saxaafadda ka soo qayb galayaasha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacda salaan hadalku iska urursan yahay inta culimadu sheegtay bay ku dhantahay quraanka iyo muhiimadda uu inoo leeyahay waxaan bogaadinayaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba bogaadinayaa ardayda ku guuleysatay inay ka mid noqoto kaalmaha hore ee aynu galabta abaal marinayno waxaan leenahay Allah ha idin barakeeyo Allah quraanka ha idinku xafdiyo Allah kuwii halkaa ka sii wada dadaalkooda iyo waqtigooda galiya Allah idinka yeelo waxaan yagana waxaan balyeeynayaa waalidiinta ku tacabtay ardayda ee u suura galiyay Ilaahay ka sukow inay quraankii kariimka ay xifdiyaan waalidiintaana yagana waan u balyeeynayaa waxaan mar labaad dhiiri gelinayaa culimada dacwada haday tahay gudiga guud ee dacwada oo gudoomiyaha Sheikh Daahir culimada guud ee deegaanka iyo jamciyada al-nuur iyo dhammaan madrasadaha ka shaqeeya quraanka kariimka iyo barashadiisa mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin bogaadinaynaa waa idin dhiiri geliyeynaa wax laga shaqeeyo waxa ugu khayrka badan waa kitaabka quraanka sida Soomaali aynu caanka kaga nahay dadka deegaanadan waqooyi bari ama reer Laascaanood waxay kaalmaha hore mar walba ka galaan diinta islaamka haday tahay xifdiga kitaabka quraanka kariimka iyo haday tahay axaadiista iyo kitaabta kalaba marka waxaan leeyahay arinta Ilaahay ka suko waxay noo suura galiyay culimada mar labaad iyo mar saddexaad ba culimadeena waa dhiiri galiyeena waana bogaadinaynaa ka maamul ahaan ka caasimad ahaan waa waajibna saaran inaanu ka shaqeyno arrimaha diinta noloshu halka ay ka bilaabato aynu ku dhamaanayso waa diinta islaamka ee xaqiiqada sida awgeed annagu intii karaamkayaga waxaanu ballan qaadanaa inaanu dhinac taagnaano garab taagnaano sidii loo baran lahaa quraanka sidii madaariistu hagaagi lahayd sidii ay u heli lahaayeen inay awood u yeeshaan culimadu iyo macallimiinta quraanku inay ardayda ay wax baraan kutubta iyo quraanka kariimkaaba baanu ku dhinac taaganahay hadaan nahay maamulka caasimadda intii aanu hore uga qabanayna waa waajibna saarnayd haddana diyaar baan u nahay mar labaad iyo mar saddexaad ba waan u mahad celeynaa culimadeena sharafta leh waana u ducaynaynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa waxaynu ku jirnaa ayaamihii ugu dambeeyay ee Ramadaan waxaynu joognaa xilliyada ducada la aqbalo baynu ku jirnaa saacadaynu hadda joogno waxaynu u fadhinaa madal qiimo badan oo inaynu abaal marinayno oo dhiiri gelinayno arday aynu ku abaal marinayno inay guul ka gaadheen xifdinta kitaabka quraanka kariimka waxaynu fadhinaa masaajidkii waxaynu Ilaahay ka baryaynaa aynu dhamaanteen aynu u baahnay Ilaahay ka barino in Ilaahay abaarteen naga soo jebiyo Ilaahu abaarteen naga soo jebi Ilaahu abaarteen naga soo jebi ilaahu ummadaadii baan nahay oo islaam baan nahay adaan ku soomanahay ilaahu abaarta naga soo jebi ilaahu ummadaada dhibaataysan ee macaluulaysan ee duruufaysan ilaahay u naxariiso ilaahu noo soo naxariiso ilaahu abaarta naga soo jebi